Baritaankan caafimaad ee lacag la'aanta waxaa fulinaya dhaqaatiir ka socota International Medical Center ee magaalada Kampala waxaana ka faa'iideysanaya dad Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Soomaalida ee Kisenyi. Xarunta Somali Community ee dalkan Uganda oo dadaal ku bixisay suurtagelinta baritaanadan caafimaad ayaa sheegtay in muddo badan ay ka shaqeynayeen si dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kampala ay u heli lahaayeen baritaan caafimaad oo lacag la'aan ah, gaar ahaanna dadka aan awoodin inay qarash badan ku bixiyaan isbitaalada. Xiriiryaha Jaaliyadda Khaliif Maxamed Cumar ayaa sheegay in dhaqaatiirtan ay fulinayaan baritaano caafimaad oo lagu ogaanayo cudurrada faafa iyo daweyntooda. Somali Community oo juhdi badan geliso u adeegitaanka dadka ku dhaqan xaafadan oo basiibada ah ayaa waxaa maalinba maalin isku daynaa inaan baahidooda aan xaqabtirno. maanta waxaan u keenay dhaqaatiir free ah sida u jeedaan IMC la dhahaa doctor-sida la fadhiso waxaa la dhahaa Sofia la dhahaa waxaa la baarayaa wadnahooda caafimaadka cudurrada faafa la baarayaa waxaa laga baarayaa HIV laga baarayaa waxaa la ogaanayaa maadaama wadankan nagu dhegan wadanka Congo oo cudurro badan ay ka jiraan qaxootigana hore gadaal ugu socdo in cudurrada faafa qofku uu ogaado maadaama maanta ama ogaato cudurkaaga halkan inay wax ku qaban karaan la gaari doono mar aad waxba ka qaban karin ama sariir lagu jiifin doono marka sidaa daraadeed ummadeena habeen maalin aan u shaqeyno waxaan uga faa'iideynaynaa jaaniskan maanta soo maray. Baritaankan caafimaad ee lacag la'aanta oo soconaya muddo hal maalin ah waa markii ugu horeysay oo ay helaan Soomaalida ku nool xaafadda Kisenyi ee magaalada Kampala, balse xarunta Somali Community ayaa hore u suurtagelisay iskuul lacag la'aan ah oo lagu barto xirfado kala duwan iyo luqadda Ingiriiska kaasoo ay ka faa'iideysteen dad badan oo Soomaaliyeed. Mukhtaar Xuseen Maalin, Universal TV, Kampala.